رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. intaa kadib tartanka inoo bilaami doona su'aalaha inoo bilaami doona su'aalaha waxa ku horeynaya group A su'aasha koobaad waxay oranaysaa sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland fadhiga guddida cadaaladdu wuxuu ku ansixi marka ay joogaan ba 5 xubnood ta 7 xubnood ja 6 xubnood ha 8 xubnood waqtigu idin bilaamay. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa aadan maxamed ismaaciil kana socda ururka samawade su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa tii oo 7 xubnooda waynu wada eegi doonaa waa ta oo 7 xubnooda saasi ay sax ku tahay. su-aasha labaad waxay yeelan doonaa B team B. su-aasha labaad waxay odhanaysaa sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xadhiga ugu yar ee garsoore la xidhi karaa waa ba 3 sano ta 4 sano ja 5 sano ha 1 sano waqtigu idin bilaamay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Nuuruddin Maxamuud Faarax. su-aasha jawaabteeda haddaan isku daro waxay noqonaysaa ba oo 3 sano ah. ba oo 3 sano in wada eegi doonaa jawaabta su-aashaasi sidaas ayay sax ku tahay. waxaanu gudbi doonaa su-aasha saddexaad group A. su-aasha saddexaad waxay odhanaysaa gobolka saaxil wuxuu ka kooban yahay waa su-aal wadaniyada ba 9 degmo ta 7 degmo ja 8 degmo ha 10 degmo weydin bilaabay waqti. jawaabta haddaan isku dayo waa tii oo 7 degmo ay la tahay. waynu eegi doonaa sidaasi ayay qalad ku tahay waxayna sax ku tahay ja oo 8 degmo ah. waxaanu gudbi doonaa su-aasha afraad iyo group B. su-aasha afraad waxay odhanaysaa sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 5aad farqadiisa afraad tirsiga taariikhda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la raacayaa ba hijriyada ta miilaadiyada ja xilli tirsiga Soomaalida xilli tirsiga Soomaaliga ha ba iyo ta weydin bilaamay waqti. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed cabdilaahi. su-aasha haddaan isku dayo waxa oo ba'yata ah waynu eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay. su-aasha shanaad baynu u gudbi doonaa waa group A. sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda cadaaladdu waxay u xil saaran tahay fulinta go'aanada ka soo baxa ba maxkamadaha ta guddida cadaaladda ja xukuumadda ha guddiyada labada gole weydin bilaamay waqti. haddaan jawaabta isku dayo waa taada oo guddida cadaaladda taadaynu eegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay. su-aasha xigtaynu u gudbi doonaa group B. sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland habmaamuuska labaad ee qaranka waxaa leh ba madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ta gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ja gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ha gudoomiyaha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland. su-aasha haddii aan isku dayo jawaabteeda waa xa oo gudoomiyaha golaha guurtida ha oo gudoomiyaha golaha guurtida eegi doonaa sidaas ayay sax ku tahay. su-aasha toddobaad baynu gudbi doonaa group A. su-aasha toddobaad waxaynu odhanaysaa
tirada guddida joogtada ah ee golaha guurtidu waa ba 25 xubnood ta 23 xubnood ja 24 xubnood xa 26 xubnood wadiin bilaabmay waqti su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa tii oo ah 23 xubnood ta oo 23 xubnood baynu eegi doonaa sidaas ayay qalad ku tahay waa ba oo 25 xubnood sax ku tahay su-aasha xigtaynu u gudbi doonaa su-aasha xigta group B bas kale sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerarka ku saabsan diinta dhaqanka iyo nabadgelyada waxa dejintooda leh ba guddida culimada ta madax dhaqameedka ja guddida nabadgelyada xa golaha guurtida wadiin bilaab waqti su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa xa oo golaha guurtida xa oo golaha guurtida inuu eegi doonaa sidaas ayay sax ku tahay way su-aasha sagaalaad baynu gudbi doonaa group A sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiilada ee cusub waxa uu qabanayaa fadhigiisa ugu horeeya ba 30 maalmood gudahood ta 45 maalmood gudahood ja 50 maalmood gudahood ha midna su-aasha jawaabteeda isku dayo waxa weeye ba'da oo 30 maalmood ah ba oo 30 maalmood aynu eegi doonaa sidaas ayay sax ku tahay su-aasha u dambaysa waxa yeelan doona group B su-aasha u dambaysa waxaynu odhanaysaa kalfadhiga aan caadiga ahayn ee golaha wakiilada waxa uu ku qabsoomi karaa ba codsi ka yimid madaxweynaha ta gudoomiyaha golaha wakiilada oo isugu yeedha ja ba iyo ta ha dhammaan magacaygu waa Nimco Cabdiraxmaan Yaasiin ka socota ururka Saako haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayna waa ja'da ayaynu wada eegi doonaa sidaas ayay qalad ku tahay waxaana sax ku tahay dhammaan su'aalihii la isweydiiyey kooxdan ku horeeyo kooxda samawade waxay haysataa 3 dhibcood waxay seegeen 2 su'aalood oo kamid ah su'aalihii la weydiiyey ayay la seegeen 5 su'aalood baa la weydiiyey kooxda samawade 3 su'aalood si fiican bay u garteen 2 su'aaloodna way la seegeen marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin kooxda samawada waxay haystaan markaa 3 dhibcood kooxda safe aid 5 su'aalood la weydiiyey su'aashii u dambeysay bay la seegeen waxay haystaan 4 dhibcood waxay u gudbeen wareegga labaad aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka mid noqono tartamayaasha oo ka socda ururka samawada society dadaal badan waanu soo dadaalay laakiin nasiibku saaxiibadayga naga soo horjeeda ayuu guusha siiyey saaxiibayaal waa idin hambalyeynaa taa waxaa ka muhiimsan oo aad nooga muhiimsan anaga ka samawad ahaan iyo ka urur ahaanba inaanu wax badan soo qaybnay wax badan aanu soo dadaalay xog aanaan ka hayn dastuurka iyo wadaniyadda inaanu soo qabanno aanu in badan ku soo dadaalay marka hore diyaar waxaan u hayn inaanu guuleysano iyo inaanu guuldaraysanaba marka Soomaalidu waxa ku baabahada dhinaca laga badiyay anagu saaxiibayaal waa idin hambalyeynaa aad baan bahashantii waxaan gudoomiyaha ururka dhalinyarada Safe Aid Community Organization amba loo soo gaabiyo Saako Organization kulay maanta waan ugu soo talagalnay labadaba inaanu guuleysanay iyo in laga guuleystaba waxaan u hambalyeynaa marka koowaad ururkii dhigayga ahaa in la tirsameeyay oo kulay iyaguna si qurux badan oo gobonimo leh oo qiimalada iyaguna intii karaankooda u soo tartamay kulay waxna waa xagga rabbi bay markastaba ka qoran yihiin oo si kastoo soo dadaashay hadana wixii xagga Ilaahay ka qoran marna ku sheegi maayaan marka xaalad kastoo timaadaba alxamdulillah Ilaahay waan ugu mahadnaqaynaa ka warahaana inaanu soo baxnana Ilaahay waan ugu mahadnaqayaa marka labaadna xubnaha qiimaha badan leh kulay matelayay xubnahooda kale iyo ururkooda kale iyaguna dadaalka iyo kartida iyo juhdiga soo bixiyay si ay u guuleystaan waxaan leeyahay idinkana hambaliya baan leeyahay farxad weyn bay noo tahay muhiimaduna ma aha uun dhibcaha midka iyo labada ah ee lagu kala sarreyn karayo laakiin muhiimaddu waxa weeyaan u diyaargarowga fahamka
iyo waqtigelinta barashada dastuurka iyo arrimaha wadaniyadda marka waad wada dadaasheen orod kastoo dhacana dee cid unbaa kaalinta koobaad gasha laakiin guusha waynu wada leenahay marka inaad isku hanayseenna oo isku hambalyeyseenna waa raganimo kale aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa tartanku intan u noqon maayo marka samawada waxaan leeyahay sida magaciinu ka muuqata allah idinka dhigee ta dambaba insha allah billahi kariim tartanada ma iman doona waxaan rajeynayaa kuwa dambe idinkuna inaad guulaysan doontaan marka waad mahadsantihiin howlo way noo socon doonaan waa bilow wanaagsan insha allah bishaaro wanaagsanna waynu wada heli doonaa idan mala dhammaantiin